الله أكبر. salaad roobdoon ayaa maanta guud ahaanba laga tukaday deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ee Soomaaliland. Halkani oo khayriyada magaalada Boorama waxaa isugu yimid boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Boorama kuwaas oo tukanayay salaada roobdoonta ah. لله الكريم الوهاب الرحيم التواب الهادي إلى الصواب مزيل الشدائد وجابر المصاب وفارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضر فما سأله سائل فخاب علم عدد الرمل والتراب وأبصر فلم يستر بصره حجاب وسمع جار القول وخفي الخطاب يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب بحكمته سبحانه ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أنعاما طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل تحيي به العباد وتغيث به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم أنزل في أرضنا بركتها وأنزل في أرضنا سكنها اللهم أنزل علينا من السماء ماء طهورا وضعفك النهايستا وحنو الله برينا والروب إلهي حمد سنة إله رب نوشم إله السماء نوفر dadku waxay leeyihiin xilligeedii maahay adiga xilli kuma xilne ilaahu roob nasii ilaahay roobka nasii ilaahay aradkaaga sooqo ilaahu xoolo iyo dadba wala baahan yahay ilaahu baahida aadun baa baahi tiri kara ilaahu roob nasii adaweyna waaxidee ilaahu roobka nooshub ilaahu baryada eedah nagu hoojin barya baad tiri ilaahu waan ku baryaynaa ilaahu waan ku baryaynaa ilaahu roob nasii ilaahu roob nasii ilaahu alaada anna dul joogayna ilaahu naga qabo ilaahu dadkayaga maxabba geli dhaxdooda ilaahu qulubtooda iswaafaji dalkayaga ilaahu noo barakee dawladeeda ilaahu noo barakee dhulka ilaahu noo barwaaqee dhalinyarada ilaahu noo barakee ubadka iyo oryahaba ilaahu noo xafid ducooyinkeena ilaahu noo aqbal Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر waxaa maanta xarunta gobolka Awdee Balli-Gubadle si ballaaran looga oogay salaada roobdoonta iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda hoose ee degmada Balli-Gubadle munaasabadan cibaadada ah waxaa ka qayb galay xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Balli-Gubadle iyo sidoo kale maayir ku-xigeenka degmada Balli-Gubadle kuwaas oo bulshada kala qayb galay ducada iyo baryada Alle looga baryay in roob khayr qaba la siiyo gobolka Hawd iyo guud ahaanba deegaanka iyo guud ahaanba dalka salaadan roobdoonta ayaa ahayd mid ay muslimiintu oogaan xilliyada abaaraha iyo roob la'aanta ay eebe uga baryaan raxmaad iyo roob barwaaqo keen bulshada ku dhaqan Balli-Gubadle ayaa si weyn uga soo qayb gashay munaasabadaasi iyadoo ay muujiyeen isku duubni iyo rajo ku aadan in Alle uu ka aqbalo ducadooda halka maanta Balli-Gubadle waxaan ku qabanay roobdoonta ilaahay baanu baryaynaa إلهي بانو برينا ومدى نسأل الله وسوله تاتينا خير كذب ما أنت واحد يسكسوها ياقي يظن بتقلي دي حوش وصاحب كوضي ما أنت مفروض تنسي سمعنا نقول لك رأيه مدحوينا عاد مفهم مليون دينا إلهي مدى الخير خذها يصوت ومدى وبالرمضان هذا شوية عفيو وسيركا diintii awqaafta taasoo arrin waajiba in dadku marka ay abaaraha noocan oo kale ay ku dhacaan in xagga ilaahay loo noqdo waxaan leenahay acmaasha wanaagsan ee ku jirnay bisha barakaysan ee ku jirno maanta shan maraysa iyo roobdoonta aynu tukanayba Allah inaga aqbalo waxa kaloo iyadana aad iyo aad ugu faraxsanahay nabadgelyadii ka dhacday deegaanka ismaamulka degmada Xarshimeed iyo
jiidii ay ka socotay berigood talo shaqaaqada dacwalay taasoo soo dhamaatay arrin nabadgelyo leh noqdaan oo alla kaliya subxaanahu wa tacaala ay baryaan arrintaasi walaalayaal waa arrin lagama maarmaan ah alla bariga iyo inaynu qalbi saafi ilaahay ku barinana waa laynaga doonayaa ilaahay u toobad celino iswada cafino wixii dhexdeena aynu meesha ka saarno الله سبحانه وتعالى وإننا وحين ويديسنا سبحانه وتعالى إن السير رحمة دقدقة اللهم أنت لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا عاما قدقا مجللا دائما إلى يوم الحاجة اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم إن بالعباد والبلاد من الجوع والضنك ما لا يكشفه غيرك اللهم أنت الرحمن الرحيم غافر الذنب وقابل التوب اللهم اغفر ذنوبنا اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا عاما قدقا مجللا دائما إلى يوم الحاجة اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم افتح علينا من بركات السماء والأرض يا الله اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وصلى اللهم على سيدنا محمد عبد الرحمن سمرية تلفزيون قرنك الصومالي لأن قبل كاسي هاود mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ayaa shacbweynaha magaalada hargeysa salaadii roobdoonta ahayd kula oogay masjidka weyn ee ibraahim dheere ee magaalada hargeysa salaada kadibna waxaa halkaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeediyey sheekh almis yaxya waxaana ka mid ah hadaladiisii waxaad mudan tihiin inaad ilaahay u soo noqotaan marka naqsu min al-amwali wal-anfusi wath-thamaraati intaasoo idil waa masaa'ib dhacaya maxaa laga rabaa xikmadda ku jirta waa ii soo noqday wiish toobad keena isjeclaada iscafiya qalbi wanaagsan ku wada jooga daacaadka la kaalaya jumucaadka camira jamaacaadka camira diinta ilaahay ooga fasahaadka iyo xumaha yareeya inta khayrka wada isku hiiliya balaaya inta wata gacanta iska qabta isku tagab ilaahayna leeyahay subhanahu wa ta'ala liyudhiqahum ba'd alladhi amilu waxaasoo dhan fasaadkaasoo idin waa wixii aad la timaadeen in kamida ayaan idinka abaalmarinayaa bu ilaahay maxaa ku jira xikmadda ku jirta la'allahum yarji'un kalgacayl bu ilaahay naga qaba ilaahay wuu ina jecel yahay allahu jalla jalaaluhu ilaahay adoomiisa ma nabca isaga ina abuuray isoo noqdo bu ilaahay leeyahay waxaan waan idin xanuujinayaa si aanan ciqaabta yawmal qiyaama iyo aakhirada dambe aanan kaaga jarin adduunkaan rabaa inaan kugu toosiye ii soo noqo madaxadeega iska daa tub ila allahi jalla jalaaluhu ayuu ilaahayna leeyahay subxaanahu wa tacaala biyo la'aanta ina haysa ceelalkii biyaha inaga durkay dhibicdii korka oo inaga yaraatay ceelalkii biyuhu inoogu jirayoo la gaari laayahay intaasoo idil waa min aayaati illaahi waa aayaadkii ilaahay subxaanahu qur-aanka ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay إلهي وحي سبحانه قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين كنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه بيو إذا كدر كامل كورا عيالك أد لباتن كمتر يصدق متر وقتك جرتين هذه بيو بقول كنتن يلا بقول متر لك قلان كورا مبيو آية إلهي بين قوت واحد كتر هذا إن أصبح ماؤكم غورا biyihii aad dhaansan jirteen dhulku hadduu idinka durko oo uu fogaado tamarta aad leedahay inaad biyo aad kula soo baxdaa waa maxay faman ya'tiikum wa ayyo ilaaha alla aan ahayn ya'tiikum idin keenaya ceelka idinka soo dhuraya bimaa'in ma'in biyo macaan wa ayyo man huwa allah soo ilaahay maha ilaaha marka agtiisa waxa yaala ma kibir iyo dulmi iyo durmaan iyo been iyo qabyaalad iyo dhiig daadanaya inuu arkayna maanta galbeed waxa ka dhacaya waxa daadanaya ramadaanada galay ad ogtiin waxa dhacaya magacan ilaahay lagu baryaa markaa
dad muslimiin oo muwaxidiin maana dadka ahayn qul in asbaha maa'ukum ghawran biyihiinu hadday dhulka hoos u galaan oo idinka durkaan man ya'tiikum bimaa'in ma'iin يا إذن وأي قفك إذن صدر درا يا وأي وإلهي يكحنا هذا سبحانه وتعالى بيها إنه عد بينه إنه مجالي الجونا قصبت بينه كفرنا إلا بويد بينه دامين إسا مدرين سنين إنه لكن تتكلم مدرين سن عاقد بيها صعب بيها ومساكين تادت كنه ميجي جوا أيها قرنا يسحر إسكو دمانيا أيها قرنا يا لبعد به وحاي محيطه إلى هذا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون إلى هذا ينوق الله شكت كور رمبيو بيها أنا عبد سنة عشان أتكون ميرانا سنة استعمال سنة ما إذن كحوجين يا تمرتين يا أقونتين يا لعقتين يا ماملكين يا دذالكين ما إذن ككستو دجيب إلهي سبحانه ضرورة وقدرت بعض تأوليدين أفرأيتم كورما ما الذي تشربون بيها تكبرنا سا أنتم ما إذن كحوج له أو تمر له ضرورة تاكركين مريم إذن كدجين كره أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلين بلا إلهي سبحانه وتعالى إذن إنه إلهي كحدنانو وإنه ديغديس كحدنانو وإنه توبت كينو دولك إسكت لغنو قلبينا طاهرينو إلهي نصاري أينو كسو بحنو كدبنا إلهي أينو برينو إلهي نضيع مايو ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا طبقا مجللا يا رب العالمين. degmada maxamed moogo maanta si weyn loogu ogay salaada roobdoonta waxaa ka soo qayb galay culimada degmada iyo dhammaan bulshada ku dhaqan degmadaasi. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay sheekh Bushra oo ku hadlayay afka culimada degmada maxamed mooge. dardaaranku wuxuu yahay walaalayaal inaynu si dhab ah u toobad keenno ilaahay jalla wa ala inama dulmiyin inaga isdulminay innaga ayaa markaa waxay dembigeennii markaa waxa weeyaan cirq iyo dhulba uu ka batay innaga ayaa markaa waxa weeyaan runtii xaqiiqada jirta iyo abaaraha iyo itixaamada ka miyiga jooga iyo ka magaalada jooga macaasida iyo dunuubta aynu markaa faraa kula jirno weeye waxaan ila gudboon duco iyo alla bari subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa u carara waxaan ma aha dunuubteennii iyo macsideennoo fara badatay uulina ilaahay in badan naga dhaafay dardaarka koowaad aynu soo jeedinayna waxa weeye madax iyo mijaba mid yar iyo mid weynba dhidig iyo labba dhammaanteen inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala rujuuc ila allah ilaahay xaggiisa inaynu noqonno qodobka labaad inaynu dhammaan acmaashaynu samaynayno kuwa xun aynu ka tagno hadday tahay macsida ay salaad la'aanta uga horrayso hadday tahay macsida kale ee maxaan ku idhahdaa ragga iyo dumarka khilaafka samaynaya waxyaalaha xashiishaadka maandooriyaha ah waxaa arkaysaa qof soomanoo maanta dhan ilaahay u afxirnaayo markuu sidaa u afuro xabasigaala tuf ka sinaya يعني وحيرها صوت ولا لا إنه إلهي سبحانه وتعالى وجود ووحي قرباء وإنه إلهي سبحانه وتعالى لا تلا فريو لما أنت سمار لا أردن هي عالم كإسلام كأردن أي لما أنت كود ذلله إنه جماعة إلهي بريغة وهي إلهي سبحانه وتعالى الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب إلهي وحكوا وعرايا هذا وحي دي سوي لي إن آدم وحكوا وعرايا طائب بدنا أو سؤال بدنا. وأنا شو نقولون في حافظ الدكتور محمد موجه وهذا يركوران كبحنا صلاة استسقاء صلاة رمضانتا إلهي تبارك وتعالى يمكن علينا نسور جلي نبي عليه الصلاة والسلام مركلون غضب مارت هذه جيسة صدق سياب وكسبناتين نبي عليه الصلاة والسلام إنه استسقاء وسمي مر نبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة وده أيام من بكعي مساجك كعي مارت كم غطاك يميجا ورسولك إلهي حولي على أكسمين ودعيك نوي قرآن إلهي نوي سبحانه وتعالى من رب نشبه إن رسولك خطبتي أي كدعي تسوى قاب كم إذا قابلكم مارت رمضان تبار رمضان إن خطبتي الشباب الكدعي نبي أنتو قعمها يكروا قابي ودعي سحاب الوحيدين حتى نبي مارت قعمها تاقي قزعة من السحاب عركة ميتشوبين يعني قد عاد يرى ضروري ميتشوبين نبي قعمين المدتين إلا ربك يسقب صدي أنا وارك ندرته يسوق علي نبي نخو كمودي من بركي لا وروك دعي تسوى قاب كلام حويان
salaadaha kadib in la duceeyo oo ilaahay subxaana watacaala la baryo inuu raxmad inoo shubo qaabka saddexaadna waa qaabkan maanta aynu u tukannay salaada istisqaaga ah laba ragcadood ee qaabka ciidoo kale la tukanayo. xuseen xidig warbaahinta qaranka garoonka degmada maxamed mooge. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. waxaa maanta xarunta gobolka awdee balligubadle si ballaaran looga oogay salaada roobdoonta iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda hoose ee degmada balligubadle. munaasabadan cibaadada ah waxaa ka qayb galay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada balligubadle iyo sidoo kale maayar ku-xigeenka degmada balligubadle kuwaas oo bulshada kala qayb galay ducada iyo baryada alleh looga baryayay in rooba khayr qaba la siiyo gobolka hawd iyo guud ahaanba deegaanka iyo guud ahaanba dalka. salaadan roobdoonta ayaa ahayd mid ay muslimiintu ogaan xiliyada abaaraha iyo roob la-aan si ay eebe uga baryaan raxmaad iyo roob barwaaqo keen. bulshada ku dhaqana balligubadle ayaa si weyn uga soo qayb gashay munaasabadaasi iyadoo ay muujiyeen isku duubni iyo rajo ku aadan in alle uu ka aqbalo ducadooda. halka maanta balligubadle waxaanu ku qabanay roobdoonta ilaahay baanu baryaynaa ilaahay baanu baryaynaa ummadda in nasal ilaahay u soo shubo. taasina khayrkeedu maanta waxay iska soo hagaagay iyadoo nabadgelyadii hawshkula soo habkooday maantana roobdoontii somaliland oo lagu akriyayo madaxweynehana aad baan hambalyo diraynaa. ilaahay madal khayrkooda ay soo hoobto ummadduna waa bil rabadaan halaysooda cafiyo wasiirka diintiya awqaafta taasoo arrin waajiba in dadku marka ay abaaraha noocan oo kale ay ku dhacaan in xagga ilaahay loo noqdo. waxaan leenahay acmaasha wanaagsan eenu ku jirnay bishaa barakaysan aynu ku jirno ee maanta shan maraysa iyo roobdoonta aynu tukannayba allah inaga aqbalo. waxaa kaloon iyadana aad iyo aad ugu faraxsanahay nabadgelyadii ka dhacday deegaanka ismaamulka degmada xarshimeed iyo jiiddii ay ka socotay berigdhow talo shaqaaqada dacwaley taasoo ku soo dhammaatay arrin nabadgelyo leh. noqdaan oo alla keliya subxaana wa tacaala ay baryaan. arrintaasi walaalayaal waa arrin lagama maarmaan ah. alla bariga iyo inaynu qalbi saafi ilaahay ku barinana waa laynaga doonayaa. ilaahay u toobad celino iswada cafino wixii dhexdeena ah aynu meesha ka saarno. allah subxaanahu wa tacaala weynana waxaynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ina siiyo raxmad degdega. اللهم أنت لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا عاما قدقا مجللا دائما إلى يوم الحاجة. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجوع والضنك ما لا يكشفه غيرك. اللهم أنت الرحمن الرحيم غافر الذنب وقابل التوب. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا عاما قدقا مجللا دائما إلى يوم الحاجة. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم افتح علينا من بركات السماء والأرض يا الله. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وصلى اللهم على سيدنا محمد. عبد الرحمن سمرية تلفزيون قرن كالصومالي لاني قبل كاسي هود. الله أكبر الله أكبر
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم إنا هؤلاء ندعوك اللهم أجبنا اللهم استجبنا يا ربنا اللهم استجبنا يا ربنا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ارحمنا إلهي بام هذا هلكن سبحان ساكا اسمو كاني وأنكم موجنا أنه إتال دريدين أن إلهي لانهي إله وأنه إتال درنهي هذا أود لي يا بارها نجسو تشبي يوحي دباتيك للشربة دمانتين وورهيو قدوميها قبل كأو أنو مرتينهي وسيرك الدين تو شوية دمان وسيرك كله مدحض كله تدوينها haweenka waayeelka iyo carruurta dhallinyarada yaryar dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore bil barakaysan baan joognaaye ilaahay cibaadada ha inaga aqbalo dhammaanteen ummadda somalilandna meel kastoo joogtaba ilaahay abaartan iyo wixii kala dhiba jiraba allah ha inaga dulqaado sheekhaa dhameeye horta yidhi kelmaddii aan odhan lahaa markaan arkay garoonka waayo maadaamaan aan nidhi aan soo baxno oo aan muujinno oo aan ilaahay barino abaaraha jira awgeed de garoonka markaan arkay waxay muujinaysaa inaynaan weli diyaar u ahayn baryada ilaahay waxaan leeyahay ummadda somalilan war marka hore ilaahay aan ka cabsoonno aan garanno ilaahay inuu ina abuuray inuu inala xisaabtamayo waxa weeyaan abaarta annagu waxaan nahay guddida abaaraha qaranka waanu uga warroonahay dadka inta kale waxaa naga warroodin kuwa jooga ee ay ku dhacday ee ay hayso markaa wixii aan haynana ee ummaddan ka helaynaa sidii ay hayd baan u gaadhsiinaa laakiin ummadda somalilan waxaan ka codsanayaa maanta halkaa aan joogo weliba dadka ilaahay wuxu dhiibay waa markii laysku imtixaamayey adduunyada waxaa loo yimid de waa imtixaan war nin walowba ummaddaa baahan ee ummaddeenna war intii aad karto aan iskugu darno oo aynu u dadaallo keenna haye waa lagu imtixaamay ka dhibaataysanna waa imtixaaman yahay aan garanno noloshu waxay tahay waa 4 cisho cidina joogi mayso waxaan cabsan carruurta yaryar ee halkan joogta maanta ee safka hore fadhida bal ilaahay aad u barya idinku innaga malaa'inteeda waaweyn ee dunuubteedaaba badane haweenkana waxaan leeyahay idinkuna waxbaa hadranine gamahaan sare u taagno dhammaanteen aan ilaahay ka cabsoonno ilaahay barino waxaan u nimidnay maanta waxa weeyaan ilaahawna soo asto ilaahay hayna asto ilaahay raxmaddiisa haynoo liso ilaahay wixii dhibaatee kale jirana allah inaga dulqaado xanuunnaa kalaa ku jira xitaa oo abaarta waxa raacay xanuunnaa raacay xumad xanuun la yidhaaho ilaahay isagana haynaga dulqaado wax kale war kale ma jire waxa weeyaan ilaahay aan barino gamcaha sare u taagno ilaahow rabbigeew naga aqbal ilaahowna soo astur ilaahow ha nagu ceebaynin maanta baryada aanu ka baryanno ilaahow ha nagu hongaynin ilaahowna astur ilaahow noo dembi dhaaf ilaahow cibaadada naga aqbal ilaahow raxmaddaadana noo lis ilaahow raxmaddaada noo lis ilaahow raxmaddaada noo lis adaa weyne waaxidehe ilaahay haynaga aqbalo